بسم الله الحمد لله رب العالمين. maanta waxaan qaadanaynaa cashirkeena 23 ee farmakolojiga. waxaan kusoo jirnay antibioticska ama waxa loo yaqaano qalajiyaasha. waxaan soo qaadanay groupka wada ahaa penicillins, waxaan ku jirnay groupka labaad oo ah aminoglycosides. aminoglycosideska exampleska ugu horeeya ama daawooyin kamid ah ayaan rabnaa inaan halal u barano. waxa ugu horeeya daawadan loo yaqaano aminocasine sulfide ayaa la yiraahdaa ama amicacine sulfide. markaan rabno inaan fahanno trade namekeeda waxaa la yiraahdaa amicine. classification waxay kamid tahay group ahaan ama antibioticska ku jirta, waxayna kasii tahay aminoglycosideska groupka la yiraahdo. dosagekeeda ayaa badanaa ugu fiican oo laga qaataa provider ahaan. sidoo kale IV adult ee dadka waaweynkaana IV waa laga sii karaa. childrenka ama caruurta yarkaana 15 mg ayaa laga siiyaa per kilogram. and they in 2 and 3 equal divided dose every 6 and 12 hours for 7 to 10 days. 7 ilaa 10 maalin ayaana loo soo wadaa. newborn ciyaalka yarka ma hadlayno loading dose qiyaas wax loo siinayo kala cabir ee jira 10 mg lagu dhufanayo per kilogramkiisa 7 ilaa 7 mg every 12 hours kama siinayo. idin qiyaas ahaan cabirkaas loo siinaa. aminoglycosideska aan ku jirnaa waxaana kamid ah daawadan la yiraahdo amicacine. marka halkaas ayaan u gudbaynaa qaybtan. waxaa kaloo jirta qayb kale oo la yiraahdo gentamicin sulfide. gentamicin waa ayadana waa daawo caan ah oo badanaa la yaqaano. trade namekeeda waxaa la yiraahdaa chromazine ama gramazine. classificationkeeda ama glasska ku jirta antibiotics ay kamid tahay aminoglycosides ku sii jirta. dosagekeeda badanaa adultiga ayaa waxa la siiyaa 3 mg per kilogram day maalintii. waxaana loogu qaybiyaa equal for 3 oo 3 qaybood looga dhigaa 8 saacadood. IV ayana badan laga qaato oo IM inta waa laga qaadan karaa. sidoo kale markaan ka hadlayna daawadan gentamicin-ka is drug of the choice for the hospital. waa daawooyinka badan isbitaalada ay jecel yihiin. acquired gram negative species sepsis badan waxaa loo isticmaalaa gram negative waxyaalaha ay sababto bacteria nooc loo yaqaano ama sunta waxyaalaha ay keentay, including neonatal sepsis ayna kamid tahay ilmaha yarka oo macnaha neonatalka ah sepsis ku dhaco kala ama infectionada dhiigga ka raaca. serious sidoo kale serious staphylococcus infections waxaa lagu daaweeyaa staphylococcus infectionada ee sababta ee halista ah. nooc kamid ah bacteria ayaa staphylococcus loo yaqaana ayaa lagu daaweeyaa iyadana. side effect ayaa leedahay waxaa kamid ah alopecia oo qofka inay tinta ka cararto. CNS-ka ama central nervous system waxay ku keeni kartaa toxicity inay keento kala ama infections ay keento kala dhagaha. neurotoxicity oo kala nervous-ka inay dhibaato keento. tinnitus waxa loo yaqaano qofka maqalka inuu ka lumo kala inay keento. dizziness oo wareer qofka inay ku keento. ringing in the ears dhagaha kala inuu qofka qaylo shanqar ku sababto. ama vertigo waxa loo yaqaano iyadana dizziness camal wareer ama qofka inuu macnaha dhulka la wareegsado kala. IG marka la hadlayo gastrointestinal waxay ku keentaa labo vomiting oo qaaca anorexia cunto yari. weight loss raashinka qofka go'o ama miisaankiisa hoos u dhaca. anorexia inuu cunto yari qofka raashinka uu diido. increased salivation iyo cali fara badan ama candhuufta qofka iska socota dhareer inuu sii daayo. cardiovascular marka la hadlayo wadnaha iyo xididada la xiriir waxay ku keentaa palpitation oo qofka wadnaha garaacmo. hypotension oo kala dhiigkarka inuu macnaha hoos u dhaco iyo hypertension inuu kor u kaco. sidoo kale hematological dhiigan maxay ku sababi kartaa decrease number of blood cells. waxay keeni kartaa inuu hoos u dhaco blood cells-ka ama unugyada dhiigga inay hoos u dhacaan sida RBC, WB waxyaalahaas oo dhan. gonorrhea waxa loo yaqaano ama gonorrhea ama genital urinary tract waxyaalaha la yiraahdo ama habdhiska taranka ku keeni kartaa. nephrotoxicity oo kale inay kaliyaha nephroniskeeda wax u geysato. sidoo kale local marka laga hadlayo ama local ahaan jirka pain ay keeni kartaa. irritation ay keeni kartaa. ama injection marka laga duro kala meelaha muruqa kala side meesha lagu duro kala IM site-kaas oo kale wax keeni kartaa ama muruqa meelaha lagu duro intramuscular injection sites-ka oo kale marka lagu duro waxaas ku sababi kartaa. information qaabka u samaysan tahay gentamicin-ka 2 ml ay cirbad loo helayo 2 ml oo contain 30 mg. sidoo kale ambula oo iyadana 8 mg ayaa la heli karaa cirbad iyo ambula. wax hadda oo farqi u dhaxeeyo xitaa qaabka u samaysan tahay. dosage marka ahaan badan loo isticmaalaa intramuscularka usually caadiyan. IV sidoo kale adult dadka waa in loo sii karaa. childrenka waxaa la sii karaa 2 ilaa 5 mg per kilogram every 8 hours. newborn markuu yahay 2.5 ayadana. ophthalmic solution indhaha kala waxyaalahaas lagu daaweeyaa 0 iyadoo
0.3 oo macnaha drop ahaan oo gooje oo aragteen ilaa 150 minutes ayaan macnaha 1 ilaa 2 dhibic ayaa lagu shubaa every 15 ama 30 minutes ayaa lagu daaweeyaa. Tusaale topical iyadoo ointment ay jirto boomaato oo korka la marsanayo 0.1 cabirkaas qaadatay 1 ilaa 5 times ayaa maalinta la isticmaalaa affecting area meelaha ay wax ku dhaceen oo kala MB marka should not be mixed with other drugs for parenteral use. Ma loo isticmaali karo daawooyin kale in lagu qaso marka qofka lagu daraayo kala ama xididka laga siinayo meelahaas oo kale kaliya gaar loo isticmaalaa. waxaan kusoo jirnaa walaayadan ku jirnaa drug concentration. daawada waxaa loo baahan yahay in laga taxadiro giving I am give it slowly marka qof muruqa siinaysa tartiib u si deeply in the large muscle gudaha u galiyo muruqa dilute dose baraxna biyo ku dar macnaha qofka iyadoo seeka siinin monitor for the kidney functions mar walba qofka kaliisa hubi oo inay waxaad ka baarta loo yaqaan baan oo ay waxyaalo urea iyo nitrate waxaas laga baaraa proteinka iyo creatinine-ka complete blood content oo sameeya qofka dhiigga WBC giisa ama complete blood content waxa la yiraahdaa CBC ahaan u baaro sida WBC RBC ga waxa soo dhimay takreedka baar for more than 7 days consult with the doctor according adigoo dhakhtarka la tashanaysid mar walba qaadanaysid. intaas uu ka yagtaa qaybteena aminoglykosideska labadii example ugu horeysay oo ahaa amikazine iyo gentamicin waana caan gentamicin ka ayaana caansan badanaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.